وقصة كدعدي ميلان جوجنو وحاجري نين هو إلهي حول إسكسيي ودجنا حاسكيسة شن عروري لهاين marka ninkan xoogo ila xool uu siiyay wuxuu imaan jiray sanad walba Afrika uu imaan jiray dawladdu marka magaceeda inaan sheego qaaradan baan sheega marka laba reason uu imaan jiray business uu lahaa familkiisana way joogeen meeshay joogeen marka uu soo noqonay ilmihii marka dambe wuxuu go'aansaday maadaama markaas uu joogay laba bilood joogay inuu gabarka guursado meeshuu yimaado mar walba markuu guursaday kadib gabadhii ayagunba is burburinay ayagunba guriyahooda iska burburiyay gabadha meesha joog mid kamid ah gabadhii xagga wacday waxay tiri oo moogtay ninkaaga inuu guursaday ma dhici karto ma ninkaaga uu guursaday waa kaas ninkii miskiinka iska noqday xagga tagay buuqa lagu furo waxa la soo guursad soo maaha ani aad isma naqaano madaxigiisii ninkii markuu si kasto gabadhiisa rabay xaaskiisa rabay inuu u raali geliyo waa diiday wuxuu ku yiri gurigan ku dhisa dag masertir waa diiday wuxuu yiri dahabaan ku gadaa way diiday baabuur cusub aan ku gadaa way diiday xajaan ku geeyna way diiday dan culumadii masaajidka u bandhigay culumadii la hadashay marka gabadhu waxay soo istaagtay maya aniga oo hebel gabadhii la guursada laga ma yaabo okay ninkii markii la kari waay gabadhii la kari waay jaanis ku dambeysay marka wuxuu noqday anuu isoo wacay wuxuu sheekhu gabadha muxaadarooyinkaagan way dhageysataa qisasta ka sheekaysa jimcada iyo ducooyinkan way dhageysataa waxaan rabaa inaan la hadashid gabadha arintaas aa jirto gabadhii markaa qisada dhan uu iga sheekay waa la hadlay walaalahay waxaan dhahay gabadhaas xaqi culays ku hays maxaa hal waxaan rabaa aqli ahaan inaan kula hadlaan dhahay waa u banaantahay ima banaana geesans ka dhigno gabadhaas hadda xagga joogto culayskay kugu hayso maxay tahay gabadhii marka waxay bilaad inay wax ka sheegto waxaana dambi ha gelin gabadhaas horta waxay kugu sameeysaa yaraatan ma jirto dhib ka jira waxa gabadhaha markii naag kale la guursado naagti kale caynaysa naagtaas dambi ma lahan إذا حر قفص أديك حروته إذا حروته نينكاجا وياه دو قف قلي نينكاجا قال لك جبنا أسكال وحاس كل يدي ما جرته حتى كل ما بنان إن ترى فر دين تديده حتى إن ترى ناك تصفر أماني يفر ولا ديده حتى أديك ترى كذا لا جبنا أس مسكين كم هاد لي كرت المهم جبنا ما حدا ولا عليه ولا هدلنا جبنا إسكدا دم بينه هجلين أذن كوديجا المهم مركز على هاد لي أو أركو حدا ولا عليه واني وشيء وحنا علاسكو وما هيسو نينك سند والبسوا بحجر على وبلون ها labadii bulood baxay intuu meel kaliis joogi lahaa qofku ilaalay soo martay daaninka jeceshid intuu kaliis dharkiisa dhaqan lahaa oo maqaayad ku cuntay lahaa qof uu ku dago oo takeer gareyso uma baahan almuhim gabadhi si kasta oo la hadlay waa soo istaagtay markii dambe waxaan dhahay wallahi waxaan dhahay khibradeedu waxay tusaysaa in ku dhahay hadii amaanta ku madaxad kaatid inaa ka shalaynaysid aan kugu dhaaranahay qayb kama ogi laakiin wallahi waad ka shalayn doontaa waxay ugu jirtaa waa mahadsantahay sheekh okay وكي وما حسنت مركوله كيس ولا جاحر الباب ولا جاحر نين كان لهذا مركو حان ده هاي وحكي خير بدن الله كوب بدل بس وارن طبعا يقدر ما تاني جبدي سيدي على غفرة جبر حوا اسكو قرحانة هاد عدد مركي كبح ذي نين كلا قبته نين كم مركي أو جور سيدي نين سومالي معه نين كدمبه نين كي لباب بلود مركي اسقابين مال مالهم كده حكوير وحان ربع إنا ضد عزومة هي قدر سميسد جبد وايه تري قدر سميسي جبرا صومال ما شاء الله قدر وحي كريم معان بريس عرفاي هيليب علابي كريس قولي نينكي مرتدي سقول كي جلين ولا قدي ولا بحي مركي لا بحي كبدي حاسكي سوير هبلو هاي كاله وحرم إنه كبر ولا شاء جبد مرك ولا شاء وفهم ويسوحيتر هذه ولا شاء مسني ولا شيء مركز يصير ولا شاء أوكي سي ولا شيء برمل ولا شاء مسلمة ده هذا ولا شيء هذيت أنا ولا شيء هذين ولا شيء واس محاكاة وده وفهم ويس مرحوا جبدان وناكتم كله جورس دي ما أنت واي جوريانين كل شيء جرينيسا جبدي إندهني تحت وحيتر ناكت إلى أروست قديت أنا ما سميه هذا نينك وحواس لسحسينه هي محاكاة قلدن حرامي أنا جورس ده إلى سوي مبنينه حتى هاي لا وكوب بني لكن مش بهذه الطريقة أنا عنت هذا كوب كريه أو هنا جوري كو أروستيد كبدي مركب وقادوس وحكلوا أوسي درك السيد مركب حير مقل هالقولي هالبرسنت دجنا سوما عنها ما دام هالقولي هالبرسنت إذا عاو أروستها هاي قول كاجسوها جاجي سريرتي سيفي عن سوها جاجي سيفي عن سوها فراش أنا جبدان كلا أس أروسني هذا جلين أدينا برسدة سيحانيسا كبدي وحيكون نقطة أرين كلا علوس متسد هذا أو در وحير أسبوع أو أقل كان أو محلها تضاد مع المودنة هذيك عم تذكرني سيد يكون تلاقى
gabadhi inay tahay markaas do you have problem with that arrintaas dhan may kugu haysaa waxay tiri maya gabadhii marka way qaadan weysay waxay ii sheegtay marka habeenkii markii waxay tiri inta mar aan tamaniyey inaan albaabka ku garaaco asinaagtiisa ku jiraan xisaab ma laha markaas waxaan u maxaa u sameyn weysay waxay tiri waa cabsaday way ka cabsatay ninka calaasha nin Soomaali ma waa ka cabsatay waxaa dhacday marka gabadhii waa qof markii culays badan la saaro uusan filanaynin wuu xanuunsana pressure ku dhacay gabadhii dehydration ku dhacay isbitaalka la geeyay faleeb baa lagu diray xataa dhakhtarka marka dambe warayso wuxuu ku dhibaato ma ku hayso abuse ma lagu sameeyay yani jirana kuma hayso korkaaga waa si buuxo korkaaga waa qalalan what's going on marka wuxuu meesha sheegay ama okay dhibaato yar ay haysto family problem ay haysto okay gabadha hooyadeeda wacatay hooyadeeda markay wacatay kadib waxay ku dhahday arrintii u sheegtay hooyadii aabihii u sheegtay waxay tiri waxaan rabaa ninkan inaan ka furto gabadhan wuxuu yiri lagama yaabo arrintaasna aniga galo ninkii hore igu ceebaysay mar raba inaan galo almuhim waa taqaanaa naagta ninkeeda wax rabtay inay ka dhamayso si fiican ay ga dhamaysiinay xaaji waa lagu celceliyay ilaa marka dambe uu aqbalay waxaa dhacday marka culumadii uu tagay culumadii waxay la kulmeen marka ninkii oo gabadha qabay la kulmeen arrintii u sharxeen ninkii waaba xanaagiibo markaasuu intiina culum waxa u imaateen aniga naagtiga furtaa miya maya uma imaan inaan kaa furnay waxaan rabnaa wax xal inaan keeno ninkii culumada qaar kamid meesha jooga wallahi sheegay ninkii inuu istaagay xabadsan u taagay wuxuu yiri annaga baqnay waxaan maya waa fiicanta nin fiican tahay waa sii baxan maca salaama anaga guriga iska jooga hayso guriga waa baxna anaga waana leen kugu nimid meesha waan fiici weysay ninkii waa iska bixi culumada waxay dhaheen anaga ma awoodin inaan sameeyo gabadha walaalkeeda marka culumada kamid ahaa walaashiisa ihaanadan waxa uu dul qaadan waayay walaashiisna meeshaas iska joogtay waa mahadlayso bidadan waa qof xanuunsan yani shaaga ku dhacay dhibaatada gaartay qof ibn aadan uu gaar qarni ku dhintaana balaga yaabi lahaay xadacdi marka walaalkeeda ninkii kuna wuxuu maqal niyo walaashii ku marabta fur hada furi weysin wuxuu maxkamadan ku geeyna anoo muslima maxkamad geeyna wuxuu muslimada aday ku taala gabadhan walaashii ku marabta Soomahan fur billati hi ahsan ma Soomahan wa bayna wa baynaka al mahaakim ما ربط مياها أنا ما بربيبه هاي فر ما فر العجة إيجا بحذو يعني معهم فرة دي سنة تنفري العجة إيجا بحذانية العجة كاب بحذ أراستي وع ما هي قال أراستي إيه ما ربط ما العجة إذا ربع هاي وع العجة أسوأ شيء وده مر وصوح حسابته وحير سريرته أسيو كجيفة هذا إناكتي سكلا وكجيفة سريرته وصوح حسابته وحصوح حسابته سدح كوني حوجو ججبه كسوادكتي wuxuu ku daray wuxuu ii sheegay waxyaalahan la yaabay sariirta ba xisaabta door rabe waxaan la yaabay waxa uu daray maalintii sariirta la soo gaday waxa lagu soo qaaday baabuurka oo naagtiisa wala ninkan oo sheekh walaashiisa lagu soo qaaday gaas uu ku shubay xataa waa xisaabay wuxuu maalintaas gaaskaas aan ku shubay intaas oo ku daray bidetail wuxuu yiri waxaan la yaabay ma warqadu ku qori jiray ma bangigu ku soo printer garay waa yaani suu u qoray wax walbo markaas oo xisaab markaas uu yiri waxa kala jirto uu yiri anigana waxa i gaaray damage morally dhiba i gaaro culaas aan filanayna igu dhacay marka taas marka isiisaan kadib waxaan u baahanahay ani nafsiin hataa waa dhiba ay gaari waa inaan wal aqli u siido naftirkeeda hadhow wuxuu dhibiga naak marka furto xooga waa taqaana dhiba ku gaaraayo marka wuxuu yiri waxa 3,000 xooga soo walaalkii 5,000 u keenay wuxuu yiri 3,000 xooga soo 1,500 waxa sheegaysa u qaado walaashin hadda meesha khuluc furitaan hataa ka marabno waa laga khalcina xoolaha qaado makhluucaad gabadha walaashin ku khalciyay gabadhi sidii marka ay xuriyadeeda ku soo qaadatay gabadhi markay xuriyadeeda soo qaadatay way nasatay adiga maalmo bil markay joogtay amal waxay la xiriirtay marka ninkii hore ay kala tagayeen ay la xiriirtay waxay ku tiri marka waxaan rabaa inaan caruurtu arko weligii laakiin taariikh ahaan inta aan galay mawduucan galay ninkaas nin ka fiican oo ka ibn aadansan oo ka akhlaaq fiican weli ma arkin runtii niman fiicanna way jiraan gabdho fiicanna way jiraan niman xunna way jiraan gabdho xunna way jiraan laakiin ninkan oo kale runtii ma arkin telefoon baa isku naqan weligii face to face ma arkin ayuun baa soo wacay waxa dhacday marka ninkii way soo wacay waxay ku tiri caruurteedu wuxuu ku yiri maqal caruurtan shanta adiga dhashay mar allaala markaa rabtay aragtina u timaad ii soo sheeg waa ku furan guriga hadaa rabtid inaa la dagtidni oo go'aansatay ii soo sheeg anaa guri kale ijaaranayo guriga waa kaaga baxaaday caruurtaada jooga gabadhi marka hore waxay ku bilaad marka waa soo ziyaarana step waa soo ziyaarana ma hadan xoogo markii joogtay tir waa xarabayna xoogo la deeg waa yahay maalmaha kamid ah marka way u yeertay waxay tir kaalina kula hadlaan rabaa
ووقتي عروتي جوجي لهاين عروتي مركب waxay u geysay guriga hooyadeeda geysay caruurtii waxay rabtaa ninka eedii kaliya inay isla hadlaan ay rabtaa waqtiga caruurtu ku weelan dugsina ma jiro iskuulna ma jiro laakiin iyadana siyaas kale saas caruurtu waa ka xayso hooyadeeda u geysay ninka markuu soo galay caruurtii inuu joogo u maleeyna la naagtiis ma aan khalaas way mahram uma ahan albaabkii xirtay casiir biyo u keentay marka waxay tiri aaw caruurta ma jooga inuu istaago waxay tiri ma yahay istaagana kula hadlaan rabaa waxay tiri waa ka qaldamay dambi badan waa ka galay waana kugu xad gudbay waana dareemay dulmigan ka galay ee waxaan rabaa inaan isku noqono maxay kula tahay ninkii wuxuu ku yiri marka inaan isku noqono waa hatta yeeli jamal fi samil khiyam inaan kugu noqdo Soomaanaha markaas iidan ma aqoonin quraanka carabiga ma taqaan waxay tiri maxaa macnaheedu wuxuu yiri cibada ma taqaanaa ha duleelyar Soomaalaha geel meesha ma la geli kara markaas ay tiri maya taas oo kale waayo dhax gabadhi waa xaawish abadan waa ninka wuxuu yiri lagama yaabo waa wuba ku dhaartayba hadda adiga ka soo hirtanaagu yiri kuma rabo ilmahaaga ma rabtaay hooyadooda tahay kaama hor istaagay laakiin shakhsiyan Soomaaniga ha niideeda waa ka dhacday mana ku baahnay gabadhi marka waa xaawish anay soo wacday marka dad badan arrimooda ila soo wadaago marka dad qisooyin waxa jirta aan hilmaamin dadka haduu kilma yar iiga sheego qof markuu codkiisana hilmaam wala laakiin markuu qisada wax yar ii sheego horiyaan ka xasuusan laan qisooyin aad u xanuun badan waa isoo wacday waxay tiri Sheekh Ahmed waa hiblo okay arrintii ninkii aan rabaa inaan kala hadlo marka waxaan dhahay wixii mid sheeko cusub ahaan igu sheeg markaas ma xasuustaa gabar hadda ka hor oo ninkeeda isqabsan jireen oo diiday marka waxaan dhahay ana hal meel iga dhigto waxaan dhahay gabadhii aan dhahay miya waa shalayn doontaa dhahaysi miya aan ku dhahay miya markaas ay tiri wallahi waa kursiga maalintii fadhiyo ila hadlaysay dhahaysi waa shalayn doontaa wallahi aan haddana fadhiyay tiri wallahi waana shalaay okay hadda maxay soo wactay marka maxaarta inaan ku qabto waxaan rabaa inay qabato ninkaan rabaa inaan la hadashid oo la hadashid adiga maxaa la hadli weysay waxay tiri aniga xoogo si waxay meeshay waxaan adiga la hadal waxay tiri waa la hadlay okay wixii idin dhaxmar runtii ii sheegan ani markaan dagaal galay waxaan rabaa inaan ku galo wax rasmi aan og laakiin marka wixii sheegtid oon tago oo opposite kan la soo kulmo may rabay waxay tiri ma runtaan ku sheegaa ninkan saanu ku dhahay waa ii ogolaaday ana reey markii dambe aan isku noqdo hatta iyada ay sheegtay albaab caruurta hooyadood inaan u geeyo hooyadii inaan u geeyo saanaan sameeyay isku noqonaan rabnay laakiin wuxuu igu yiri tiri quraanka inuu isugu sheegay kelmadaas uu igu dhahay hatta yiri jamal fi samil khiyar okay marka waxaan dhahay ninka run ahaantii xaq uu leeyahay aan dhahay inta samar lagu soo mar laakiin I will try adii nasiibka waa la hadla ninkii aan soo wacay way qabtay marka waxaan ku raniyo waa ku baahnaa inaan kula hadlo waqti ma haysay waa la hadlay marka wuxuu Sheekh Ahmed oo khayr Allah ku siiyay arintaas wuxuu yiri waa arin dhimatay ka soo qaado dhahay mar raba inaan ku noqdo gabadhaas gabadhiina igama herin asigina hadal fiican ima siinin marka dambe waxaan ku dhamaqal muhaawada ugu dambaysan sameeynayna waxaan ka rabaa maadaam qaladka qofka galay aad tahay oo ictiraafsan tahay cudur daar soo qor warqad cudur daar qofku qaldami karaa ceeb ma ahan laakiin qaladkaaga ina qaldantay oo haddana diyaar u tahay inaa ka baxdid soo qor gabadhi marka way u tiri maalmay maqneed waxay soo qortay warqad hawmareena gabadhaas waxay ku takhasus qor essay markii la qoray waa taqaanaan waxa la sameeyay muqaddima la sameeyay la qoray body la qoray 3 paragraph 5 paragraph kadib conclusion loo sameeyay exactly sidoo kale u soo qortay warqadda marka waxay sameysay aniga text message ku soo dirtay aniga iyo asiga hal group noo soo sameysay magaciisa ma save gareysno waa fiir warqad markaan fiiriyay waxa arkay naagtaan ninkeeda amaanayso waxaan ma sha Allah naagtaan ninkeeda san amaanayso naag caadi ma ahanba san u aqrinay markii dambe waxaan arkay waa fiiri waxa ku qoran ninkii malaa'igay ka dhigtay say u amaantay waxay tiri saana tahay oo saana aheed oo saana markii amaantiis ka baxday waxay ku xujisay marka paragraph ku xujisay waxa way ida iska hadashay anigana waxay tiri waa ka qaldamay intii qaladaadkeeda dhan ay qortay dulmigan ka galay waa kugu xad gudbay tan saddexaad paragraph saddexaad waxay qortay marka hadda waxay diyaar u tahay wax kastaan sameeyay qaladan sameeyay waa qaladkayga waa qaatay wallahi diyaaran waana ka shalay run ahaantii ma ahanay tiri waa caruurteedii waxaan jecel caruurteedii inaan aabaheedu oo isku hayaan jeclahay kilmar marka hallayna kaligiis ee bold ka dhigtay waxay ku soo qortay marka noqoshadan kugu soo noqonaya caruurtaada waa part laakiin aniga ku jecel oo ku rabo caruurta waa rabaa in isla haysana laakiin anigana uma maleynay nin adiga ka fiican inaan heli doono mana rajeynay mana u maleynay inuu joogo sida darteed waxaan ka codsanaa
inaa igu noqotid waxay tiri marka dembina waa la galaay waana laga toobad keenaa ilaahaygiiba dadka wuu cafiya waxaan kaa rajaynaya inay cafisid runtii warqaddii markaan arkay waa aharat fiini waa ogo si fiican ii ta'tiirisay waxaan go'aansaday marka ninkii warqadda wuu gaaray waa arki karaa inuu arkay lana hal guri baan ku jiro inuu arkas inuu arkay kamuusa soo jawaabay marka dambe waxaan go'aansaday marka in aniga u tago baabuurkaygaan qaatay ilaa meel dhowr saac loo socdo waa meeshaan ugu tegey waa wacay marka asalaamu calaykum hebel calaykum asalaam haa sheekh axmed marka waxaa inaan ku arkaan rabay ها وأوجه تلفونك مية إنا كو أركو سو مجالات اسمه دقنيت ها ما يوحنا أنا جا ما هذا مجالات هذا جوجاي مجالات جوجتها ها إنا كو أركان واربا أوكي مقايد ده سيبنا نسوي نماذج كفاية نسوي تكن مقايد دي وألف لي سبحانه مقال أو كوس وقابنا على البلاطة سيدها عرفت من غير مقدمات نيو أنا مجالات دقنا واتقنا سو معنا كولومبوس وهاي دقنا ها أنت ساعود حون سو درايف جري for one reason adiga naagtaada xaaskii hore hiblo inaan ku noqoto inaan ka shaqeeyo ninkii wuu istaagay walaalo marka waxaan maqal aday ku taala aniga kelmadan pressure damba ma jiro inta sameey karo waan jamay wallahi billahi waxaan u soo baxay intaas markaas uu yiri uu aamus wuxuu su'aalan ku weydiinay ilaahan kuu dhaari safarkan waxaan u soo gashay ina aniga iyo gabadhaas miskiin celisid markaasna wallahi wax kale ma intaas leeyahay markaas wuxuu ugu yiri wallahi marna kuma tala jirin gabadhaas inaan ku noqdo laakiin safarkaas oo gasho runtii wuxuu yiri inaan ku celiyo aadigu adag tahay wuxuu yiri waa haye gabadhii wacan oo meesha la joogo weligiis muusan wacin gabadha way qabatay markaas tiri hay salaam calaykum markaas wuxuu yiri sheekh axmed ila joogo waa arintiina waxaan rabaa inaan isku noqonaan rabaa yiri waa khalaas wuxuu yiri waxaan go'aansan isku noqono gabadhii marka wuxuu ku tiri مهبت عادي هبل مياه مركز وش أحمد إلى جوجو أو مجال سفر كسوقل أو يمد الناس كنا قلنا ربنا شرط يجرى لكن إنه شو أحمد قف كلنا مهرينين مركوحنا هي هذا أنت دور ساعة دور سعودي هذا دور ساعة كلام صونا وقتي هلا مجالنا إما مشغول نوع هاي مركوحير واحد ما لهن قبل أنت سوي شيء بحيث حد به هلا حد هلا نكاح محاول وضح دها وحي أراسي أنا سمي سنة لك شيء أحمد بحد بحاي هذا هلا سمي اوكي marka aabihii aan waanay arintan u sheegay aabihii familku waa rumaysan way asigani ninkii ma gabadhu ku noqonaha ma hubtahay waa hubay sheekh axmed oo khayr allah ku siinay waxaabata khadar inay soo dariyaatay hadaa isku celinaysid marka waxaan dhahay waxa ilaaha gacanta ku hayo sida ay marka ninkii iyo gabadhii nikaax ugu soo sameeyay alxamdulillah sidii ay hadda ay ku noqdeen reer ku noqdeen ay ku joogaan alxamdulillah gabadheena waa dareentay siniin kadib ayaa ninkii ismaqalnay wuxuu yiri alxamdulillah waa wuxuu yiri wallahi beenku mishiigay nolosha hadda ku noolahay weligii kuma noolaan oo dhax hatta isbuuci arooska iyo haddaan ka fiicanahay oo nolosha ku noolahay lana khibra qof walba wuxuu arkay marka xanuunkii dhibku soo taabtay marka qisadan oo kale waa qisa dhacday waaye iyadoo kale waxa laga yaabaa inay dhacdo waa laga yaabaa iyadoo badan inay dhacdo waa laga yaabaa qisooyinka marka ku saabsan arrimaha faa'iidooyin cibro badan laga qaataa hadda مثلا qisatu wax loo sheego cibro laga qaataa qisooyinka faa'iidooyinka ka qaadayna waxa kamid ah marka hadii aad masiirto gabar lama dhihi karo ma masiiri kartid ninna lama dhihi karo naa kale ma guursanaa masiirkaaga laakiin inaad kontrolshid wax muhiim waay waxa ka sii muhiimsan gabadhaas kale lagu guursay inaad mar aadan ku xad gudbin laba option adiga haysatid تيكو في عنو كو شيء لبا اوبشن هذا إنا كو جوجتي إنا كو بحث هذا كويساتي لكن قبلها إنا كو حد جذوبت أما واحد كشيكت أما آتلا نينك فر دم بواي مكو بنانا أذيك محاكو في عن إنا جوري جا هيستي نينك جا هيستي قبل كذاش هذا صوق الشيء هداد أجب بحث جوري جا وطبعا عقلي يروي أذيك هاسو سودكت وحا عديس كو عديس ماشى مرك إنا قبل داس هذا اللي ترتمي كرين ay ka cilmi badan tahay ka qurxan tahay oo ninka aadan la haysan karin marka meesha soo saartay miiska soo saartay waxa loo baahan marka gabadha inay ku fikirto waxaan wax adduunyo waay waa dhacday Soomaaliya khalas ninkii aysan ku haysan karaa caruura meesha joogteen ku haysan karaa arrimahaas in laga fikiraa loo baahan yahay maseerka طبعا waa la controli karaa waa dad maseer badan way jiraan Aisha radhiyallahu anha waa masiiri jirtay waa ogtay markii jooyri soo galeysay markii aragtay nabigu galeysay markaas wuxuu inuu guursanayo markaas markii soo gasho wajigeedan ka dareemay karin
ومسير لما ديدي كر ومسير وجري لكن وحلو باهي هي إن عقلك الاستعمال وحاجر عقلك إيه قلبك وسي وشقيان لكن عاطفة وحيرته وحول بإنا هيشد وحول بأرد الدنيا كم هي ليس عقلك لكن وحو كتوسا أرنتان هذا كل دقائق واربا وإلا في عن الله هذا كل دقائق محاكا دنبيه عقوباتك أما دبعتك دنبيني سمحيتها هذا مرة بين أمدلك كنود أوكي وابحي سؤال سويديني سيد أوكي نين كان ما أنت هذا كلا تكنو نين كان نين الآن ما أنا هانا مية هذا هذا حتى waxa iga maqan gaaba iga maqan soo maanaha okay ninka kale oo imaanay aan guursan doono ma ninkan oo kale noqona misuu ka xumaana ma taqaani maxaa la dhihi jiray maama waxa jirtay la dhahay timir oo gacantaada ku jirto timir geed saar ma loo daaday tan waa buu taab ala aqal ninkan waa ceebihiisana waa taqaanaa shan ceeb uu leeyahay waa taqaanaa waa hagaajin kartaa laakiin kan cusub imaanayo ceebihiis ma taqaani 10 muu yeelna mise 20 muu yeelna ma taqaani marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalahay muslimaadka arrimahan oo kale haday dhacaan ku cibra ka dhigo gurigaaga ha burburinin waxyaalaha aadka u xun waxa waaye guriga inuu burburo dhibaato badan ay leedahay dhibaato aad u xun ay leedahay ilmahaasana dhibaatada gaaraysa ugu badi adigina waa ku gaari qaar waa gaari ninkii waa gaaraysa qofaysan gaarayna ma lahan furitaanka waa xalaal waaye waana xal waaye laakiin xalka ugu dambeeyo waa shaytaanka waxa kaliya xalaash uu ku farxa taas waa rasuulka xadiis saxiix uu sheegay galabti markii la gaaray shaytaanka inuu badda korkeeda ashi saarto shayaatiinta yariiska imaana report ay siinayeen marka mid walba wuxuu leeyahay waxaan soo sameeykan waxaan sameeykan mid wuxuu leeyahay ninka san ugu waday caasiyan ka soo dhigay waalidkiisu ku soo caasi wuxuu lam tafcal shay'an mid kale imaana waa ku waday ila zina ay galaan zina xaraam waa lam tafcal shay'an waa ku waday ila ninka kale uu dilo lam tafcal shay'an mid kale imaana waa kuwadii ilaan ka furo marna naagta u tagay dhagtan wax ugu sheegay dhiigeedan kicii mar asan u imaaday waxaan dhahay naagta wax maxay kugu qeynaysaa iidan umada ninkan adoon ma u tahay san u wadi waa kala qarxiyay waa kala tageen bas shaytaanki inuu istaago wuxuu leeyahay anta hagu siina marka shaqo fiican soo qabato leeyahay fiiri xaraamta dhameed ku muusan farxin tii xalaasheedu ku farxay marka waxay ku tusaystaas marka furitaanka inuu arrin aad u xun yahay laana guri dhana burburaa laba qofood oo guri lahaay guri la aan ku dhacay gabadhii shalay gabar marwo guri lahayd oo caruur laho nin leh markii la burbur furitaanka muxuu dhacay banaankiisa u istaagtay ninkii wuxuu ahaa nin oo laga dambeeyo gurigiisa diyaar u imaan jiray oo ahaa oo cuntadiisa diyaar waa bir maalin dambe uu soo noqona wuxuu soo noqday nin single uu soo noqday caruurtii masaakiinta caruur hooyi aaba leh ahaayeen xanaanka iyo xoogga la sugu kabaayay waxay soo noqdeen naaqisay soo noqdeen meel walba marka naqsiga sida uu soo gala waxa loo baahan yahay marka gabdhaha inay aqli yeeshaan hal waxa idin sheega oo muhiim ah gabadha ninkeeda way haysan kartaa waxay ka dhigi kartaa faraanti farteeda ku jirtay kali faraantiga taqaan waqti yar aan gelina waqti yar aan bixina soo maaha ninka saas waa ka dhigan kartaa waxa ay dhigi kartaa waxa waaye xoog ma ahan qaylana ma ahan murana ma ahan qalbigiga idin kala hadla walaalkiina ah والله نينك يا هدارت أنا وح كست كقادتي وح كست أوكو سمي ومضح أوكو صاروا باري إيرالية نقو حيوانك قفك إحسانك أسمي ويقانا حيوانك دميرك وتقانان هدي قفك قراعي قفك الوكالة يقانا نين ابن آدم أو مركز هذا الوراكس الله دهاية أو حبيبي الله دهاية وحو بهاي الله سينا أو للمر مين بالله عليك أنت سكبر محور رباي أدين وح كست هيوكو دها وحاجة تقص gabar oo kitaab qortay marshii Mustafa ka sheekeynay oo Ingiriisi manay oo jaamacada dhigta professorad waay waxay tiri fashilad badan ay gashay waa guursatay waa la furay gabdhii kale waa la qabay waxay tiri diraasa markaan sameeyay waxa ii soo baxday ninkii inuu yahay libaaxna qofkii rabo xoog inuu xaqiiqatan uu kala jibinaa rasuul sallallahu alayhi wasallam sheegay wuxuu ma ra'aytu adhhab bil lubb ar-rajul al-hadiq minkun gabadha hadii aqligeeda isticmaal dha'iifa ahaato laakiin waxay haysto hub ninka ugu xoog badan waayay ninka ugu xoog badan fiir adduunka qof walba ka baqa loo iimaan karin naagis markii xataa madaxweyne ma dhees wariya hebel ilaa wariya ugu dareysa xataa ka hay ma dhibsanaya kan keen haye alaabtan soo qaba haye asigana nimana uu adeeyo koob shaah in loo keena nin walba markuu shaah keen xataa hoos inuu fiirnayo laga yaaba naagis waxa la wariya alaaba loo baahan baxsoo qabo waa soo qabana laakiin waxa ku ada awood iskale hadii ogtahay waa gabadha hadii ogtida awood iskale nina khudbadeen jiray alayeen waana markii magaalada aad laaga jeclay
khudbadiisa waa la jeclaay maalin naagtiisa laakiin jaahil waa xabad mataqaan alif ba ta mataqaan waxay ku tiri maalin waxay ku tiri khudbada waa anaa khudbaday talaad ma khudbadaysidba ninkan wuxuu isii naagtan jaahilka alif axmaal ba aan ka siinin marka wuxuu waxa kale ogtahay ma lahan iska firiiso saas ma yahay waaye habeenkii jimcada soo galeysay ninkii waxa lagu furo mushkilo ha waa nasaana tahay qeyl ifur ninkii uu banahay warsi wax u jira adoo fiican ka tagay abadan waa saana tahay waa buuqa lagu furay ninka markii buuq lagu furo aslan waa isbedela sometimes waa nimanka markii xoog guri mushkilo ka soo gasho alis garana banaa guriya guriga maalgaaga taagay asigu wuxuu soo noqonaa wuu caatooba wajigii si kala waay waxa laga qamiis jabsan inuu wata laga yaabaa mar guriga waa asalka u tahay ninkii marka habeenkii waa buuqa lagu furay wuu siixan waaye subaxii marka waxa la sameeyay meesha qamiiska loo hagaajin lahaa qamiis loo mandaqin habeenkii casho lama siinin buuqa lagu furay musifiican muusa siixin maalintu waqti muxaadarada oo diyaar lahay buuqa lagu furay quraac male casho male dhar looma diyaarinin qamiiska jabsan oo khudbada la koro khudba oo wuxuu soo aqri nuuc kale soo aqri wuu soo degay xil maqal heblo qofka masaajid khudbada ka aqri oo sheekh adiga waayo dharaali ahaa markaas had soo ma ogaanin wuxuu yiri ana igu taaganta Soomaa adaan kugu taagan you are everything bas mar gabar aqliga leh ninkeeda way tusi kartaa wuuna og yahay ninka bil munaasaba inay asalka guriga tahay